horta kelmadda sida u baxday ayaa khalada Somaliland iyo Khaatumo waxa la moodaa laba state oo gudban in su'aasha marka ay ka dadku isu weydiinayo miidiyaha oo dhanna wada gashay waxa weeye Somaliland iyo Khaatumo horta Khaatumo waa Somaliland Khaatumo ma aha state kale reer koonfurna ma kilka shanaadna ma NFD-na ma Djibouti-na ma horta Khaatumo waxa weeyaan ama gobol ha ahaato ama qabaayil ha ahaatee waa dad reer Somaliland baana wada hadlaysa oo qayb Somaliland ka mid ah baa qawatan saamiga ay ku leedahay xukuumadda oo ka qawatan oo doonaysa inay ka hesho saami wanaagsan oo sadkeedii ah oo dadka ay la nooc tahay waxa uu haysto oo kale inay helaan waa qawad la buuxinayo beel walbana way soo martay Somaliland beela ka balbalaaran kuwa ayay soo martay qawadkaasi oo laga heshiiyay marka waxa weeye Somaliland iyo Khaatumo maaha waa Somaliland oo khilaaf ka dhex jira wanaagsanaysa sidoo kale xildhibaan Dheeg ayaa waxa uu baaq u diray dawladda Somaliland ee wada hadallada kula jirta ururka Khaatumo waxaana uu ku baaqay in si nabada ay ku soo dhameeyaan heshiiskaasi uga furmay dalka Djibouti ee aynu jaarka nahay waxaana kamid ah hadalladii xildhibaan Dheeg waxa weeye heshiiska in aan wax Somaliland turxaan ku noqdana aan lagu dhamaynin Somaliland khilaafyadii ka soo dhici jiray ee ka dhex iman jiray sidii loo dhameyn jiray oo loo dhameeyaan leeyahay